baabuurka laga wasaa soo wada baabuurka sokor ku shubaya sokora baabuur ku shubay baabuur islaameed aad xoqdid oo jijibisid taayirad dilaacisid sokor ku shubtida baratmo abti liibaan 2 milyan oo qaat abti liibaan qaniis waa abti liibaan wadanka ka car sokora ku dambeysmo sokor baabuurkiina ku shubtid ku dambeys ciyaal yar wararkay soo taraya ayaa sheegayay in weriye deeq darajo lagu xiray magaalada Minnesota halkaas oo elboorka lagu xiray Marqura weriyahan caanka ah ee ka howlgalay Universal TV deeq darajo ayaa lagu xiray halkaas isla markaana waxa lagu soo waramayaa inuu deeq darajo qayb ka ahaa dhalinyaro badan oo halkaas ku sugnaa isla markaana qayb weyn ka qaadanaya inay halkaas ka sii tagaan iyada oo wararka kalena ay tilmaamayaan in lagu heesto lacago bartamaha garoonka ku maqan kuwaasi oo kooxo kale tuuga ay Marqura ka baxsadeen goobta weriyahan caanka ah ee aad looga yaqaan gobolka Minnesota ayaa Marqura maanta guud ahaan barta internetka ee malaayiinta qof kulmisa 24 saac ee ugu dambeeyay hadalheynta ugu badan ayaa deeq darajo hadalheynta ayaa inta badan dadku badi waxay u kala qaadayeen qaybo kala duwan kuwaasi oo fadeexo qoorta u gelinayay weriye deeq darajo halka kuwa kalena ay erayo inta ka baxsan ay qabaan laakiin Marqura ayaa saacada waa berigii hore ee subax lagu qabtay garoonka Minnesota halkaas oo deeq darajo qayb ka ah dhalinyaro kale oo safar halkaasi ku ah isla markaana jecel in saacado yar kadib ay ka sii baxaan bartamaha garoonka iyadoo aan la shaacin safarkooda halka ku wajahnaa laakiin weriye deeq darajo iyo kooxo kale oo la socdeen oo dhalinyaro ah ayaa Marqura lagu xiray gobolka Minnesota laakiin waxyaabaha inta badan sababa xarigan ayaa dadku inta badan iyo xogahan helina waxay sheegayaan in kooxo tuuga ay lacag ka baxsadeen sida daraadeedna baaritaano laga wada garoonka gobolka Minnesota ay ku imaatay weriye deeq darajo oo durbo dhowr daqiiqo ka hor garoonka jooga baaritaanadii ayaa qayb looga dhigay wuxuuse qayb ka noqday kuwa xabsiga lagu xiray ee qayb ka mid yihiin tuuga xadda lacago kuwaas oo qaabab kala duwan ku xadeen isla markaana kaga xadeen bartamaha garoonka weriyahan oo caanka gobolka Minnesota aadna looga yaqaano meelo kala duwan ka shaqeeyo ayaa maanta xarigiisa waxa qabsaday guud ahaan barta internetka 24 saac ee ugu dambeeyay inkastoo saacadaha fooda noogu soo hayso la rajeynayo inuu dib xorriyadiisa u helo weriye deeq darajo